بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كجدال عوضا فرحت آدي آد وين أي إيتاي إن أن سو استاجو ستيج كان هرتينا أنيجو أوك إن ساعدنا ساعدا بتاعي دبعة إيه هودنا أي آدي آد أنا وقروح بدنين والرباب مع برف ودأيه برينا معاني شقة أيتها وعدنا شغل آديه إن ساعدنا أنت جبتان وآدي آدان إذا كم هاد علينا وعانوا أركاس ودوين تيجوا وينت أوجو معنا بدنين إن أيتها غير من الصوت وكم مع سنتين غير من الصوت أو كونغرس وومن كودي وتا أو ماير كي أو محنكرة أنت جوجا عاو الله ما كلا مغنى وإذن ما هاد علينا يا سودوين تاسي آدي آد عدي أن وحير أن كل عبتو دلكي أن كان مدى صوماليا دلكيني تاريخ دير أيو صومري أو دادك ميشان فردية دان يردا إن بدنو كميدا لغا يابو إن آني سودح تاقنين مدوين كي دعيين لكن واكو فرحسن هدان أضيال بدن أخيار بدن إن أي جوغان صوماليا انت أي وحد عيين مانو والبا soo dhex taagnaay ama u soo taagnaay oo aan anugu ka mid ahay Soomaaliya waxay soo martay waddo dheer waddadaas dheer waa laga yaabaa ummadaha taariikhdooda muga dib loo eego waddo in la soo maro ay fiicneed inay tahay dadka qaarkiis waa u mareen waddo xanuun badan oo dhib badan oo ummadda tiihay gashay la yiraa laakiin nolosha wax kasta oo ku soo qaabilaba cashar laga barta ayay leeyihiin casharro badan aan ka barannay dowladnimadeennii iyo taariikhdeedii hore ayaan dib ugu noqonnay oo aan dib u eegnay xaggee waddadu ka soo qalloocatay ayaan inaan dib uga fikirno dib u eegno ayayna waayuhuna bareen waxaan rabaa walaalayaal Soomaaliya dadka Soomaaliyeed wax kasta oo ummadi ay leedahay adduunyada waxa la yiraahdaa dawlad laba si ah loo dhistaa dad dawlad waxay u dhistaan wax ay leeyihiin oo ka dhaxeeyo oo ay wada leeyihiin jiro waxaas inay u ilaaliso dawladdu dadna wax ka dhaxeeya ma qabaan waxay dawladdu dhistaan wax ka dhaxeeya inay u samayso United States of America kamida dad caalamka oo dhan ka yimiday duruufo sida annaga asbaabta adikaad inta u timaadeen oo kale u yimiday laga yaabo qarniyaal ka hor ayay ahayd kala duwan kala luqad kala dhaqan kala muuqaal dhinac walba marka dawladday samaysteen si ay wax ay wada leeyihiin ay dawladdaas ugu samayso maanta waa u samaysay qofna qofka kale kama maraykansanaa u malaynaya the land of opportunity waa la wada leeyahay u malaynaya maanta annaga Soomaali haddaana waa ka duwanaa intaas waxaan ahayn dad isleh midaysan luqad mida leh diin mida leh dhaqan mida leh oo ujeedada aan dawlad inaan u samaysana ay ahayd waxaas inay noo ilaaliso diinta inay noo ilaaliso dhaqanka iyo luqadda inay noo ilaaliso si ay jiritaankeenna uu aasaas u ahaado dalalka noocaas adduunyada kuma badna Soomaaliya waa ka mid Germany ka mid ah Japan ka mid ah dalal yar oo noocaas ah jiro oo hal qowmiyad hal ethnic group ah oo luqadooda iyo diintooda iyo waxoodan ay midaysan yihiin dawladdana u dhistay inay waxaas ay ka midaysan yihiin ay u ilaaliso annaga nasiib darro waagii aan dawlad noqonnay sababtu si kastaba ha ahaatee dawladdeenu kuma guulaysan inay noo ilaaliso waxaa ma raba wax badan inaan ku noqdo haddaan ka soo qaado halka factor ama cunsur ee maanta jira ee ah shabaab waa organization isku tilmaama inay ku salaysan yihiin caqiido faith based inay yihiin
faithkuna waa maxay waa islam annaga dhammaanteen muslimiin aan nahay kun sano ka hor ayaan muslimiin ahayn oo noqonnay sunniyiin aan nahay shiica ma qabno xataa shaaficiyiin aan nahay afarta madhabood hal midaan ku midaysannahayo waayahan dambe in kasta oo dawladdu marka waxay ahayday waajibkeedii ugu horreeyey inay ilaaliso diinta inay ilaaliso waad og tihiin diinta dadka iska lahaa dawladnimada tii dimuqraadiyadda aheedoo 9 sano kacaankii iskaba sii dhaaf shuuciga noqday hadda intii ka dambaysana fawdo kalaan ku jirnay maxaa dhacda marka diintii meel daleel oo bannaan oo qof walba meel ka soo galo koox walbo ajenda yar wada tahay ay magaca diin waa dadka Soomaaliyeed waa hal ethnic group waaye laakiin haddana waa kala qaybsannahay qabiilaan usii kala qaybsannaha Soomaa qabiilna laguma wada kici karo hal qabiil oo inta naloo sheego Soomaaliya oo dhan ay u wada istaagaysaa ma jiro kunka qabiil oo aan nahayna laguma wada kici karo halka batan ee haddiina laga riixo aan wada kaceenno ama wada fariisanayno waa diinta islaamka oo aan wada leenahay wada aaminsannahay ku dhalanno ku dhaqanno oo yacni jirkeenna iyo curuqdeenna ka mid ah nimankan niman dhib badan waa meeshaasay naga soo galeen marka dadka Soomaaliyeed qabiil kuwii u kala qaybiyey faction iska dhigay reer hebel isu dilsiiyey u siyaasadeeyey qabiilkii waxaasoo dhan ma ayan kala qaybin waa la soo guuray Soomaaliya haddii laga soo carractaa ayadoo Soomaaliya qabiil ahaan la isugu soo dilay haddana haddii meel la isugu Soomaaliya waa meelaha la isla degaa soo maaha meel kastoo London tag inta imaado xagga tag meel kasta tag Soomaalidu isku xaafaday degan yihiin isku meelay degan yihiin waa hadda kuwii shalay qabiilka isku dirirayay qabaa'ilkoodu ay isdilayeen daad daliil waxay u tahay dadka Soomaalidu inaanay marna kala tegayn kala go'ayn kala waxismi karin waxa isku haya oo aanay u kala tegi karin waa diinta islaamka waaye nimankan khawaarijta ah meeshay waa fikireen waxay arkeen ummaddan sidee u qabsataan meesha keliya laga geli karo dariiqa isugu wada furaayo dhex maraayo kaa waaye meesha diintay naga soo galeen laakiin wakhti kastaa nagu qaadatee hadda maanta waa la fahmay waa lala caatifooday diinay wadaan shareecaday dhaqan gelinayaan maxaan ku idhahdaa xuduudday oogayaan ee maxaan ku idhahdaa intay ka dhacayaan burcad hadday jirto inay burcad yihiin la isla ogaaday wax kasta oo diinta ay xaaraantinimaysay oo diintu ay ilaalisay oo maqaasidu shareeca dhexdeeda ku xoog badan oo aayaad min dikri illaahi alxakiim ilaahay uu ka soo dejiyey ayay dardareen oo ay jijibiyeen oo ay ka tallaabsadeen nolosha bini aadamka walaqad karramnaa bani aadama ilaahay yacni muslimiinta xataa ma dhihin bini aadamkaoo dhan ayaa ilaahay karaameeyey taas marka qofkii ku tuntay oo jijibiyey oo waxay waa sidaas maanta ilaahay mahaddi Soomaaliya dadka Soomaaliyeed oo ku noolaa way kaceen shabaab inay iska dul qaadaan yay go'aansadeen sidaas daraaddeed baryahan aniga mugaan sifeynaayo waxaan ku sifeeyaa xaaladda shabaab ay ku sugan yihiin inay yihiin malaay ama kalluun biyihii ka gureen ma sii noolaan karaa malaay ama kalluun biyihii ka gureen ma sii noolaan karaa shabaab marka waa history waa dhammaadeen waa dhammaatay sheekadooda mahaddaas iyo muxuu awooddaas iyo powerkaasna yaa iska leh dadka Soomaaliyeed dadka ilaahay yaa iska leh awoodoo dhan laakiin ficilkan saas duruuftaas shabaab waxaa ku keeno ilaahayna sabab uga dhigay dulmiga ay sameeyeen awgeed waa dadka Soomaaliyeed
biyaha biyaha ka guray kalluunka waa dadka Soomaaliyeed ayagaa dhahay enough is enough maanta marka meeshaasuu taagan yahay kala carar gabasho dhulka meeshii howda isku ilaali meeshii maxaan ku iraadaaye miro la cunala iyo isku ilaali inayna isu soco karin maanta xaaladooda meesha ku sugan tahay ilaahay idinkiis intaan isugu imaan doonaa maraan dheerayn Soomaaliya oo ka madax bannaan al-shabaab hadii la yiraahdo Soomaaliyadaas waaye markaasaan u soo jeesanaynaa wixii kale adduunyo oo 30 sano naga maqnaay ama dadkii 30 sano naga tagay inaan ka daba carno oo soo gaarno waana soo gaari karaa marka xaaladda Soomaaliya haddaan si kooban ay idinku sheego waa intaas maxaa marka dawladda iyo dadka isu keeno u sahla intaas Soomaaliya siyaasad dawladda Soomaaliyeed ay leedahay oo shaamil oo kaamil oo dhameystiran oo shabaab dalka in looga bixiyo loo habeeyay ma jiri jirin sidaas daraadeed mashruuca la dagaalanka al-shabaab 15 sano la soo dhaafay badana dadka saaxiibada ah oo dibadda nooga yimid oo na kaalmeeyo ayaa drive gareynaya oo waday ayaguna mushkiladda angalkooday ka arkaaneen sidii ay ayagu markaa u arkayeen ayay waxeen siyaasadda shabaab lagula diriraayo ee jiri jirtay waxay ahayd labo mid waxay ahayd war balaayadan Soomaaliya ka soo dhax iftay yaani nagu soo bixin xuduudaha ka soo gudbina meesheeda lagu celiyo containment policy alira shabaab yaanu spill over samaynin oo dalalkan dariska ah degan iyo dalalka fog ee inta ay ka mid tahay Yurub yaanu u hayaamin oo gaarsiinin fikirkiisa iyo argagaxiisa bal meeshan aan ku celino intaan xal uga helin containment policy la jira containment policy Soomaaliya waxay leedahay 2,000 kilomitir oo xuduud ah oo dhul ah oo bannaan oo xuduudaas labadeeda dhinacba ay dad Soomaaliyeed degan yihiin in shabaab laga ilaaliyo marka howl saalan ma ahayn waa ogtiin Westgate wixii ka dhacay D3 wixii ka dhacay Kampala waa hore muxuu ahay mar World Cup hadda jiro ka iyadoo laga fiirsanayo lama celi karin soo siyaasad guuleysata ma ahayn siyaasadda labaad waxay ahayday shabaab awoodooda hal dhimo yaani awood u helin inay degaan oo ay fikirkoodii faafiyaan oo Minnesota ay muxuu ahay wiilal iyo gabdho uga yeertaan oo inta program gareeyaan ay dib ugu soo celiyaan fursadaas loo diido oo muxuu ahay niman gabanayo dhuumanaya aadaan markasto degrading al-shabaab la yiraahdo madaxdooda hal target gareeyo xiriyaha tababarkooda hal target gareeyo warshadaha ay qaraxyada ku dhisaan ku sameeyaan hal target gareeyo siyaasaddaas siyaasad fiican oo tii hore ka fiican ay ahayd labadaas siyaasadoodna waxay ka koobnaayeen ay lahaayeen hal one variable oo la yiraahdo military based ay ahaayeen both policies annaga marka waa fikirnay dooda dhaadheer discussions badan Soomaaliya gudaheeda dibaddeeda dadka gudaha jooga dadka dibadda jooga waa la iswarsaday sidaan si ma ah 15 sano 16 sano ma sii joogi karo maxaan sameynaa markii dambe siyaasad cusman anaga la soo degnay bannaanka intaan joognay oo aanan imaanin yaan ka soo fikirnay anagoo package wadanaan nimada xafiiska waxa siyaasaddaasi waxay ku taagan tahay 3 tiir waa kii hore u soo jiray oo hadda aan ka sheekeynaynay oo militariga ahaa containmentigi iyo wixii ma aha laakiin waa military tiirkaas inuu jiro la sii xoojiyo waa qodob hal tiir waay tiirka labaad waxay nimankaan dadka maxay ku haystaan dadka waxay ku haystaan caqiidadii iyo diinta islaamka ku haystaan Soomaalidu waa dad diin jecel waa dad maxaan ku raada caqiidadooda ku dhagan ku toosan meesha naga soo galeen dagaal caqiida fikir aan la galno nimankan go'aanka labaad tiirka labaad oo dagaalka ama frontiga labaad oo dagaalka la furo waxay ahayd
dagaal caqiido inaan la galno nimankan fikirka ay wataan oo irhaabiga ah oo khawaarijiga ah oo diinka bixidda ah inaan la qabsanno aan mid barbar dhigno dhahna maya fikirka islaamiga ee saxda ee caqiidada ku toosan kan waaye kan ma aha nimanku waa koox maafiya ah oo dadka inay dhacdo isu soo dhistay laakiin waxay soo hugsadeen blanket ama kubeerto oo islaam ah oo caqiidadii iyo diintii xaniifka ahayd ay soo hugsadeen barnaamijka oo fikirka dagaalka fikirka caqiidada ideological war ka aan nimankan u talagal waxay tahay blanketkaas inaan ka qaadno si dadku ay u arkaan maafiya meel fadhida inay yihiin dadka Soomaaliyeed guud ahaan mahad ka gaarto gaar ahaan culimada Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan dal iyo dibadba mahad buuxda ha ka gaarto ilaahayna ajri xasanaad ha ka siiyo codkaasi ayagaa la soo istaagay bannaanka oo yiri nimankaana waxay wadaan diin ma aha la iska ilaaliyo maanta waxaan joognaa dadkii oo culimadoodii dhageystay fahmay ku qancay waxa ay nimankaan wadaan inaanay diin ahayn in la iska celiyana ay bannaan tahay oo wixii diintu ayna fartay inaan u dagaalanno u dhimanno oo maalkeenna iyo cirdigeenna iyo sharafteenna ahayd inay meel ka dhac u yihiin in lala dagaalamo inay culimmadaa keentay magacaan hadda loo bixiyo khawaarij ah wuxuu ka soo baxay shir culummo oo laysugu yimid oo ka soo baxay khawaarij waa maxay khaarij can addiin yacni diintoo bannaanka ka istaaga qofkaas waa ka baxay dhaqankiisuuna uga baxay iyo dabeecad afkaa ka sheega hadduu doono laakiin ficilada ayay uga baxeen nimankii marka meeshaasay maanta taagan yihiin aad iyo aad ayay culimmadeennu dadaal badan u galeen waad og tihiin nooma qarsoona culimmadeennu lafsadeeda waxyaabo badan oo lagu kala duwan yahaa jiro ma aha waxa lagu kala duwan yahay aasaas ma aha waa afkaar waaye schools of thought yacni salafiyaan ahay ikhwaanaan ahay suufiyaan ahay maxaan ku idhahdaay you name wada maanta waxaan haysanaa culimmadii sidaas eedoo dhammoo midaysan oo hal meel wada fadhida oo hal maxaan ku idhahdaay fatwo isla soo saarayso waa mahad ilaahay waa mahad ilaahay dalka Soomaaliya oo boqolkiiba boqol muslimiin ummaddiisu muslimiin ay tahay weligiis taariikhda intaan dawladda ahayn oo 60 iyo muxuu ahay labada sano ah majlisul iftaa ma yeelanin muftina ma yeelanin meela dad yaro aqaliyaad oo muslimiin ay ku nool yihiin ayaa mufti leh majlisul iftaana leh ummad boqolkiiba boqol muslimiin ah oo aan lahayn meelaha nalaga galay ka mid tahay maanta dawladdu waxay u taagan tahay institutionskaas inay dhisto si loo ilaaliyo diinta nin siyaasi oo ordaayo oo ama cod raadsanayo ama muxuu ahay inaan ku hadlayno ma rabno culimada iyo dadka diinta bartay ee yaqaano oo laakiin institutionalize garaysan my word against your word inay noqoto ma rabno meel inaan leenahay waaye warka meeshaas ka soo baxay waaye ninkii warkaas war ka duwan wadaana ummadda u qaybinaya hala qabto meelaan dhigi karna inaan leenahay waay مثلا constitutionkeena waxaa ku qoran dalka Soomaaliya qaanuun shariicada ka hor imaanayahay kama dhaqan geli karo waa constitutional issue mas'alada maxay tahay laakiin yaa ilaalinaya yaa dhahayo qaanuunkan compatible oo shariicada leeyahay ilama aha yaa dhahayo Sheekh Cali Sheekh Jaamac Sheekh Cali Sow oo mid walba hadduu doono meel kale uu sheeganayo maya institution dhisan culimmadu iyo dadka Soomaaliyeed ay doorteen sharci leh degan meel la yaqaano nidaam uu ku shaqeeyo iyo nidaam uu codeeyo iyo nidaam uu fatwada u soo saaray iyo nidaam uu waxeeyo leh oo qaanuun marka la soo daraaf gareeyo loo geeyay la yiraahdo haye
qaanuunkani muxuu ahay ma ku yahay shareecada muxuu ahay ma ku yahay compliant ma ku yahay la yiraa haa markay soo yiraahdaan qaanuunkaas markaas la sharciyo qaanuun dalka iyo dadka lagu xukumo laga dhigo wuxuu aanay naga noqon af iyo maxaan ku iraahdaa waa jecna marka institutionskaas sadabkiisu waa socdaa dhawaan ilaahay idankiis shir aad iyo aad u ballaaran ayaa magaalada muqdisho ku qabsoomi doona oo culimada Soomaaliyeed oo dhan dal iyo dibad laga wada marti qaaday isaga imaan doonaan oo ay muxuu ahay amuurahaas uga hadli doonaan iyo dhismaha institutionkaas ay uga hadli doonaan dawladdu inta meel fadhiisato institutionka waa kaasa waa soo go'aamiyay dawladda idin dhista la dhihi maayo kalsoonida shacabkan rabnaa in oo muxuu ahay oo institution ku shaqeeyo oo wax shacabka ka yimid shacabku leeyahay noqdaan dawladduna ay xoojiso ay garab istaagto taas marka intaas uga baxo qodobka saddexaad ama tiirka saddexaad oo dadaalkeen wuxuu ahay shabaab waa ogtihiin miyiga Soomaaliya oo dhan inta badan marka laga reebo muxuu ahay dhulalka qaarkood ayaga haysteen dadka Soomaaliyeedna badankooda miyiga ku nool yihiin boqolkiiba 60-70 dadka Soomaalida miyiga ku nool yihiin dadkaas dadkii haysta marka lacagta ay ka gura karaan mar waa zaka ay yiraahdaan mar waa tabarucaat jihaad ay yiraahdaan mar waa muxuu ahay canshuur iyo wax kale ay yiraahdaan maalin walba lacag la ururinayo xoolo la ururinayo ayaa dadka miyiga lagu hayay lacagta ay heli karaan intay la eg tahay waad garanaysaa magaaladii yimaadeen meel kasta oo gacmaha lacagi ay isdhaafsanayso guriyaa la kala gatay baabuuraa la kala gatay badeecaa la kala gatay badeecaa la soo dejiyey kanaa la waxeeyey dhammaan public notarieska meelaha wax lagu kala iibsadoo dhan waa lacagay ku leeyihiin dekadda airboorka meel walbay saas u dhex galeen muddo nasiina ah oo aan dagaal lagu haayin oo ay meel walba ku dhex galaanna waa heleen ayaga oo aan ganacsiga Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed aan wax loo dhimin in aan sidaa uga soo dhex siibno ayaan ku mashquulsanahay in badan waa ka gungaarnay inta kalena wadadeedii aan ku taaganahay ayadana waa soo wada xiraynaa albaabaha oo dhaqaalaha ka soo galo dhaqaalaha aan xiraynaa dhaqaalaha aan la dagaalsanahay oo aan xiraynaa ma aha mid ummadda Soomaaliyeed iskool loogu dhisay mid masaajid loogu dhisay mid bar caafimaad loogu sameynayay mid ceel loogu qodayay ma aha miyiga ay sidaa lacagta uga gurayaan iyo xoolaha hal ceel ay u qodeen ma jiro bal iskuulkii ka xireen bartii caafimaadku waa xireen dugsi qur'aankiina waa xireen khuraafaada dadka baraysaanay dhaheen degmada aadan yabaal wixii u dambeeyay hadda la xureeyma tahay 12 dugsi laga xiray degmada aadan yabaal 7 sano 8 sano ka hor magaalo kasta oo aad tagtid ooba ayagu ay gacanta ku hayeen dugsi qur'aanka waa ka xireen khuraafaad iyo muxuu ahay waxaad baraysaan dadka ay yiraahdeen lacagta marka annagu aan daba taaganahay waa lacagta qaraxa iyo materialka qaraxa laga sameeyo iyo midka qaraxa samaynayo midka qaraxa gudbinayo lagu laaluusho midka maxaan ku iraahdaa gaariga la qarxino lagu soo lacagta aan la dirsanahay waa midaas waana soo xiraynaa tubooyinkaas insha Allah mardhow intaas marka waa la dagaalankii al-shabaab duruufta shabaab maanta uu ku sugayaan sidaas aan sheegnay Soomaaliya noocee aan rabnaa marka post shabaab gadaashiis Soomaaliya noocee aan rabnaa inaan aragno Soomaaliya mid ah nabad ah ayadoo dhexdeeda heshiisay oo aan colaad qabin way kala miirantay dib isugu soo noqoto isla degta dunidana la macaamisho macaamilka ay ku macaamisho ula macaamisho midka ugu fiican Soomaalida aan rabno waa taa maanta marka dadkan dhalinyarada ah meesha fadhiyo horaa loo yiri madax madow ayaa maan ku haray dadka madaxooda cadaaday ama meesha ka tagay sida xasan sheekh oo kale waxa ku haray waa yiri laakiin dhalinyaradiina muxuu ahay madaxa madow waay inta maan ku haray maan sheeridii maantaan u baahanaa marka Soomaaliya 1960kii ayay xor noqotay 62 sano ayaa ka soo wareegtay Soomaaliya 2000
iyo lixdan marka la gaaro 100 sano ayay xortahay dawlad tahay soo maaha maanta waxaan joognaa waqtigii aan ka fikiri lahayn Soomaaliya noocee ah ayaan rabnaa inaan aragno 2060 marka la gaaro dabcan qof walba wuxuu dhahayaa Soomaaliya qurxoon Soomaaliya barwaaqo Soomaaliya horumartay Soomaaliya kana laakiin miska imaanay in laga shaqeeyo soo maaha maalin iyo laba iyo sanad iyo laba iyo 5 sano iyo 10 sano miyaa lagu keeni karaa 38 sano 38 sano 38 sano noo dhiman 38 sano yaan u baahannahay inaan ka shaqeyno Soomaalida qurxoon ee aan rabno inaan aragno 2060 hadii la gaaro waxaan rabaa intaas dhalinyaro intaas inaan idinku daro maalintaas ilaahay idinkiis in badan oo adinka idin kamid ah oo dhalinyarada hadda meesha fadhida gabdhaha wiilada waa joogtaan laakiin waxay u baahan tahay xasan sheekh inuuna joogin haddii uu joogane aanu waxtar badan aanu lahayn laakiin waa idinka waaye kuwa jooga oo maalintaas ama aniga da'deeda maanta oo kala jooga ama iga sii yar xataa qaarkiin laana 20 sano jirtaan 38 sano hadda ka bacdiya 50 iyo jarjara jirtaa wali waa dhalin yar tahay so sidaas daraaddeed aan u xeydxeydano gacmaha aan laabanno aan gacmaha isqabsanno wiil iyo gabar sidaan u leenahay aan hore u dhaqaaqno aan qaabayno Soomaaliyadaas cusub ee 100 jirka mugay noqoto aad iyo aad u qurux badan oo meelaha ummadaha qaarkood dhowr 100 sano ay ku soo gaareen annagoo gudubnay oo taagan maalintaas in la arkaan rabnaa haddii aan la yiraahdo waxaan fariinta marka reer Minnesota iyo Soomaalida qurba joogta meel kasto ay joogtaba aan u soo gudbinayaa waxay tahay dhalinyarada gaar ahaan Soomaaliya haddii khawaarijta ay naga dhammaato mar dhow insha Allah wayna dhammaanaysaa caqabad kale oo noo taagan ma leh waxaa noo soo haray dawladnimada dawlad maxaan u nahay hadda aan dhahnay waxa aan wada leenahay in noo ilaaliso qabiilka miyaan wada leenahay hal qabiil maan wada nahay laakiin qabaa'ilaan nahay ma inkirayno qaran iyo qabiil meel isla galaan qabiilku waa qurun hebelow waa kii ma jirto qabaa'ilaan wada nahay kulligeen laakiin qabiilka reer qurac la yidhaa geographic location yar oo Soomaaliya ka mid ah oo degan yahay Soomaaliya oo dhan ma degana hal qabiil oo Soomaaliya min Ras Gaboon ilaa Ras Casayr degan miyaa jira qabiil walba meel yar oo inta hadaa u kacdo 5 kilomitir inta hadaa u kacdana 5 kala haday u badato dhan uu degan yahay intaasoo xeerkiisa iyo nidaamkiisa iyo habnololeedkiisa uu ku leeyahay sidee uga tali karaa marka qabiilkaas geographic locationkiisa ha ka taliyo in waxa yar wax kaliya degmada ha ka taliyo laakiin Soomaaliya sidee uga taliyaa dawladnimadeena ciladana haysato inaan ka daawon u baahno waxay tahay qabiilka inay dawladdu maaraysaa la rabaaye qabiilku inuu dawladda maareeyo lama rabo bas meeshaasay naga laadaayeen iswaafajilaanahay oo muddana iswaafajilaanahay war qabaa'ilaan nahay qabiilna waa nahay Soomaaliyaan nahay laakiin hoos muga soo degno waa nahay mana inkirayno waan litacaarafuu diyaan uga qaadanina inna jacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarafuu maxaa lagu soo dambaysiiyey inna akramakum cinda Allaahi atqaakum ilaahay agtiisa waxaa idinku karaamo badan kan ilaahay ugu cabsida badan ilaahay inaan ka cabsanana waxaa ugu horayso walaalkaaga dhiiggiisa iyo maxaan ku rahay sharaftiisa iyo cirligiisa inaad dhowrto waxa ummadda ka dhaxeeya wanaagga aad ka shaqayso waxaan rabnaa marka dawladnimadu in ay qabiilka maareysaan rabnaa dawladnimadu inay diinta maareysaan rabnaa diintu waa caqiido waa nagu jirtaa waa annagay nagu abuurantahay waa ku dhalannay waa ku dhaqannay laakiin in la hagaajiyo sax miyaa in dugsi qur'aanka qarniyaal ka hor sidii wax loogu bari jir loogu barto
xigmadii carabigeed maxay ahaydey cunuga yarka ah maskaxdiisa cunuga yarka maskaxdiisa waxa loo sheego waa sida naqshad lagu qoray dhagaxan haddaad inta qaadato aad naqshad ku qorto miyay ba'aysaa weligeed ilmuhu mugay yaryar yihiin waxa loo sheego lagu tarbiyeeyo lagu ababiyo waa sidaasoo kale hadduu 100 sano gaar xataa maskaxdiisa ka tirmi mayso ka bi'i mayso meeshii sidaas ahayday oo annaga hadda iskuulaadan geysanay muxuu ahaay kindergarten la leeyahay iyo adduunyaan geynay kindergartenka inuu dugsi quraanka inuu noo noqday ahayd kindergartenka maxaa lagu bartaa sida loo fariisto dadka sida loo salaamo cunuga qalinka sida loo qabsado yaa la baraa soo maaha meel ugu habboon oo aan ku bari lahayn cunugeenna intaas dugsi quraanka miyaa jirta laakiin maxaan u baahannahay modernization dugsi quraanka inaan casriyeyno macallinka in la tababaro ul dheer inta qaato un ilmaha inta dhex taagnaado un maantoona aanu garaacin soomaalidu waa violent waa dagaalyahamiin hadda meeshaasaa dagaalka nooga soo bilaabay 4 jir 5 jir markaan nahayaaba xanuunku iyo wuxuu yahay aa naloogu bilaabay marka inaan waa ku soo kornay marka waxaan u baahannahay macallinka inaan tababarno sida ugu fiican ee qofka bini aadamka ah ee cunuga wax loo baro farsamooyinka wax lagu barto oo dhan inaan barno macallinka oo macallinka noloshiisa la damaanad qaado ma aha in dugsi quraanka community-ga iskale meel kastoo joogo wuxuu ku guulaysto ku baabi'i waayena waa in community dadku inuu leeyahay lahaanshahaas dadku ay leeyihiin dawladda inay ka qaadda ma aha saxna ma aha kamana qaadayso laakiin dawladdu way u kabaysaa waxyaabaha dadku aanay sii karin dugsiga ayay siinay sharciyaday siinay sistamka waxbarashada ee dalkoo jiray ka mid dhigay macallinkii waa la tababaraa meesha oo dugsi quraan ku yaalla meel nadiifa oo hagaagsan oo guri fiicana oo musqulihiisii leh oo muxuu masaajidka lagu dukanayo la cunug ku dukan karo in loo dhiso loo habeeyo jidka dhexdiisa inuu ku yaallo ma aha dalkeenna 60 sanoon dawlad ahayn 30 sano waaba duruufahan gaarka aan ku jirnay 30kii sanoon ka horraysay 22kii kacaanka iyo 9kii sanoon ka horraysay 30 sano masaajid dawladdu ay dhistay meeluu ku yaallo qof sheegi karta ma jirto 4 rukun iyo masaajidka cabdiqaadir iyo oo qarniyaal ka hor ahaayo ayuuna dadka Soomaaliyeed dhisano la dhaxlo dawladdu ha maamushay waa gooni iyo masaajidka sabahaysiga islaamku asigana sidoo noogu yimid cidda noo dhista la garanayo masaajidda dalkeenna ku yaallo dhan dadkaa dhisto sidaas daraaddeed masaajid yaryar baabuurka meel lagu baarkin garaysta aan lahayn gaadhan aan lahayn kan aan lahaynay u badan yihiin masaajidda hadda idinku aad dhisateen ee Minnesota idinkugu yaallo siday u yaallaan waad arkaysaa nidaamka u samaysan yihiin qofkii yimid oo baabuurkiis meel ku baarkin garaysta leh library leh meel maxaan ku idhahdaaye wax lagu barta leh meel haddii qaarkood marti hadday timaado la deji kara leh ma qabno annaga nusboos qof sadaqaysta Soomaali ah ama hay-ad ay lacag soo dhiibtay bannaanka ka timid ay waaye laakiin dalka Soomaaliya maxaa ku yaallo masaajid talyaanigii oo dhisayaa ku yaallo masjidka talyaanigaa la yidhaha meelo badan ay ku yaallaan magaalada muqdisho xaafadda boondheer ciddii deganeeda degan waa ku yaallaa magaalada buuloburtuu ku yaallaa magaalada baydhabo ku yaallaa talyaanigaa dhisay laakiin dawladdeennii masaajid ma dhisin dugsi qur'aanka marka magaalada la cabiraayo city planning loo samaynayo meel uma samayn iskoolka meeluu leeyahay suuqa meeluu leeyahay police stationka meelaa loo reebaa maxaan ku yidhahdaa maxkamadda meelaa loo reebaa dhammaan iyada muxuu ahay wasaaradda maaliyadda bangiga kulli dhulaa loo reebaa marka dhul cusub la cabiraayo dugsi qur'aanka dhul looma reebo sidaas daraaddeed masaajidka dhul looma reebo sidaas daraaddeed dugsi qur'aanka jidku ku dhex dhisan yahay ama dhul qof ou tabarucay ou sadaqaystay uu ku dhisan yahay aniga waxaan u soo taagnahay xaafadda madiina ee magaalada muqdisho markii la cabiraayay masaajidka iyo dugsiga boos looma reebin allah u naxariisto ajar iyo xasanaad badanna allah ka siiya xaaji ibraahim uun laaye ayaa intay yimiday suuqa dadkii meel carra ah oo bacaad oon dadku aanay jeclayn oo dadka ka iibiya dhulku ka iibsaday masaajidka ugu weyn oo ugu horreeyo madiina laga dhiso masaajidka uun laaya la yidhaah suuqa weyn oo madiina agtiisa ku yaalla saasuu ku yimiday
dawladda laakiin dhul bacaada oo bannaanoo cidlaha u ahay meel kasta dhul weyn inta laga oodo masaajidkii meesha ha laga dhiso dadkuba ha dhisaa dawladda hadday intuu calaamiso dadka soomaaliyeed inta masaajiddaa laga rabaa masaajid ha laga dhisa haddii la yidhaahdo dadku waa dhisi lahayn waa jecel yihiin masaajid inay wax ku darsadaan masaajid la dhisaayo haddii la arkaa la ii soo sheego ee muxuu ahay caasho ay leedahay meelay ka saroo lacag ku haysaa masaajidka inay ku darsatay rabtaa aad iyo aad ayaan wakhtiga u dheeraaday wakhti dambena waa la joogaa aad iyo aadaan u mahadsan tahay waxaan leeyahay soomaaliya cusub oo waa cusub u baryey sida adduunyaduba ay isu soo badbedelaysay ayaan annaguna isu badbedelaynaa soomaaliya cusubaan la imaanaynaa haddaan ka fikiraynaa soomaaliyada siday u ekaanayso naqshadeedaan samaynaynaa waa daba kaceennaa ilaa meesha u dambaysa oo aan jecelnahay inaan gaarno haddii alla yidhaahdo wasiirku waa mahadsan yahay marka soomaalidaas u diyaargarooba dhallinyaro marna u diyaargarooba dalka inaad ku soo laabataan haddii alla yidhaha ugu yaraan fasaxyada marka la qabo iyo winterkanoo kale marka qabowga jiro waa hooyooyinkii iyo aabbayaashu inay soo laaban doonaan laakiin dhallinyaradana sidoo kalean leenahay waxaan rabaa dadka reer minnesota hal mid caawa inaan ugu bishaareeyo dad soomaaliyeed oo isla jooga oo meel deggan oo dana soomaaliyeed oo dhan lahaatiin dhaqankii diintii waad ilaaliseen masaajid badanna waad dhisteen waana u istaagteen ummadaha islaamkaana waxaad u noqoteen role model lagu daysadaad u noqoteen aad iyo aad ayay runtii sharaf adduunye iyo mid aakhiraba u tahay waxaan rabaa marka dawladda soomaaliya waxay rabtaa waa lagu weydiinaa wax yar dulqaado waa lagu weydiinaa insha allah haye waa la wadaa haye waa mahadsantahay waxaan rabaa reer minnesota inaan caawa ugu bishaareeyo qunsuliyad soomaaliyeed ayaa laga furaa minnesota laakiin qunsuliyaddu shaqada muwaadiniinta iyo shaqada qoyska iyo shaqada muxuu ahay ay qabataa waxaan rabaa igu muhiimsan waa laga yaabaa qaarkiin inaan markii la yidhaha qunsuliyada la furaa baasaboorka meelaan ka cusboonaysananaanba weyne iyo warqadda dhalashada meel muxuu ahay laga waxeeyaaba nagu dheeraatay iyo muxuu ahay safaaraddeena d c degan oo 2 bilood ama 3 biloodba dad soo dirtay iyo qunsuliyaddan dabcan safaaradday ka tirsan tahay laakiin maxaan rabaa aniga midaan marka codsanaa dawladdiinna waa tabar darantaa waa ogtiin horta qunsuliyadda in laga shaqeeyo la dhiso dhul loo yeelo loo kireeyo laga shaqeeyo waa kow dhul yaroo 2 qoloo 2 wiil iyo 2 gabdhood ay fadhiyaan ma aha dhul weyn oo barxad bannaana leh oo carruurta la isugu keeno maalinta sabtiga iyo axadda isugu yimaadaan xafladaha 1 Juulaay la qabo iyo meelaha la qabo dhan la isu yimaado hadday suurtagal tahay muxuu ahay xaflado kale iyo ummadaha kale lagu marti qaadi karo oo la tusi karo calanka soomaaliya uu ka taagan yahay inay noqotaan rabaa dawladdu ha tabar yaraato hadday doonto ee wixii karaankeeda ay la imaanay inta kalena reer minnesota laga rabaa ma ballan qaadeen maasha allah idin karaamay waa mahadsantiin qunsuliyadda minnesota bes ma aha magaalooyin dhan ayaa oo community soomaaliyeedoo kasto oo number fiicana meeyal degan yihiin waa laga furaa columbus ayaa laga furi doonaa laakiin hal mar ma wada furi doonne ma wada furi karne waa kala hormar siinaynaa laakiin markii minnesota laga furay macnaha maaha in meelaha kale la iloobay maaha ayagana waa laga furi doonaa haddii alla yidhaah farriintaasna hana laga gaarsiiyo mar kale iyo mar kale waa idin mahad celinaa aad iyo aad aa u mahadsantihiin allah idin sharfo waa i sharafteen ilaahay idinkiis waa guulaysanaynaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu